بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابتا أخيارتا كل ملك استاجوكتين واني سلامي. هدا channel كان كعصب تهينا أديقنا كسو دواو ما شاء الله. هل كان وكوش مريان أخصائيات هرماركا قويسسك إيردان يرادا سيدا أغبرتين كوش مريان تحانهيني حيسها بدنا حريرك وناكسن healthy relationship. فيديوغان waxaa rabaa inaan ila wadaago sababta aan jeclaada ina yani taxanahan inaan ku bilaabo oo yani healthy relationships. sababta subhanallah waxaa lagu leeyahay ibn aadanka sidiisaba noloshiisa qiimaheeda waxaa qurxiya xiriirka oo dadka la leeyahay. aan ku soo celiyo noloshaada qiimaheeda waxaa qurxiya xiriirka aad dadka la leedahay, especially dadka ku nool adiga, dadka gurigaada kula nool, qoyskaada, dadka kugu soo dhow. xiriir wanaagsan markaa la leedahay taasi noloshaada wuu sii qurxinaysaa. sidoo ibn Abbas radiyallahu anhu sida la dhahay asaga dhahay الأقربون أولى بالمعروف. قف بقفكو كاغا سوكيو وكوغو دو يهي وحو كان مدن يهي إنا حريستيد إنا مركز تبا خير إيا معروف إيا وناك إنا أسميسيد مركا إن شاء الله سيداس درتيد با أدورناي healthy relationships حريركا وناكسن بلشدين أباهانتهاي. marka فيديوغان waaba more exceptional يعني aad buu muhiim u siiyay laana waxaan ka hadlaynaa arrin oo aad u khaseysa qoysaska Soomaaliyeed. فيديوغان waxaan ka hadlaynaa an ilaahayna waxa ka baryayaa insha Allah inuu ka dhigo muuqaal oo yani nasrun wa fathun oo bulshada Soomaaliyeed u imaatay xagga kobcinta fahankeena ragga iyo dumarka sidee xiriir wanaagsan ee u wadaagi karaan. run ahaantii yani inta sana ku soo jiray bulshada shaqadeeda waxaan arkay oo ii cadaatay inuu gaab weyn inuu jiro, farqi aad u weyn inuu jiro xagga isfahanka ragga iyo dumarka. marka muhiim bay noqotay ina taas yani wacyigelin badan ina ka sameeyno. ani keligay ma aha, dad kasto oo yani culumada iyo aqoonyaanka inay markasta arrintaas inay bulshada ay ku baraarujiyaan. okay, marka waxaan rabnaa insha Allah waxaan ka bilaabeynaa videogan ladies first. waxaan ka hadli doonaa insha Allah baahiyaha dumarka. marka waxaan rabaa insha Allah walaalahay wiilasha iyo ragga Soomaaliyeed inay insha Allah qalin iyo warqad intee soo qaataan aad iyo aad yani uga faa'iideystaan mawduucan si cilmi ah iyo si oo diini ah ba uga hadli doona insha Allah. waxa muhiim ah walaalkay Soomaaliga inuu fahmo yani dumarka ama hooyada ha ahaato ama walaasha ha ahaato ama xaaskaada ha ahaato ama gabadhaadaba ha ahaato waxaa jirta baahi oo guud oo dumarkoo dhan ay ka siman yihiin, baahi oo kulli dumarkoo dhan iska wada siman yihiin baa jirta. baahidaas sida loo fahmana culumo badan baa research iyo cilmi baaris ka sameeyay, qoraalyo badan baa buugaag badan ka qoray oo xitaa buugan oo caanka ah markasta laga hadlo women's from Venus and men from Mars. yani dumarka waxay ka imaadeen kookab la dhaho Venus, raggana waxay ka imaadeen kookab oo la dhaho Mars. taasi yani waa sarbeeb oo ku saabsan yani ragga iyo dumarka labadoodaba yani laba language oo kala duwan bay ku hadlaan, sida laba oo kookab oo yani laba dhul oo kala duwan, laba adduun oo kala duwan bay ku kala nool yihiin. buugaas waxaa qoray ninka la dhaho John Gray. in fact research oo la sameeyay 2001 oo article lagu soo galiyay website-ka BBC da waxay ka hadlaysay waxa la sameeyay xogbaar oo 23,000 dumar iyo rag baa ka qayb galay xogbaarkaas oo 26 dawladood yani hal meel kalima 26 dawladood baa ka soo qayb gashay oo Mareykanka, Chinaha, Ingiriiska iyo Russia ugu badan tahay. waxa la arkay oo la fahmayna researchkaas markii la sameeyay questionnaires la weydiiyay ragga iyo dumarka waxa cadaatay sida ragga iyo dumarka ee muuqaalkooda yani physical appearance kooda sida u kala duwan yahay ba emotion kooda iyo personality kooda iyo yani dareenkoodan u kala duwan yahay.
xitaa clinica oo la dhaho Mayo Clinic oo ku taala Mareykan, yani waxay ka mid tahay organizationada oo caafimaadka ugu waaweyn. Mayo Clinic Mareykanka waxay dhahday dumarka twice يعني halis u yihiin inay depression qaadaan. يعني emotionska markii laga hadlaayo ragga iyo dumarka way ku kala duwan yihiin emotionskooda. xitaa dumarka waxaa la dhahay twice be more يعني halis ugu jiraan inay depression iyo anxiety iyo stress inay qaadaan, according to Mayo Clinic America research kooda. marka taas maxay ku tusaysaa inuu walaalkeen Soomaaliga ah inaad aad iyo aad ugu baraarugsanaatid sida yani dumarka noloshaada oo ugu qiimo badan dumarka noloshaada ku nool, yani dumarka noloshaada aad la qaybsatid inaad fahantid insha Allah. waxaan ka bilaabeynaa baahida dumarka aad muhiim u tahay ragga inay fahmaan oo ku saabsan safety-gooda dumarka, inay dumarka dareemaan xasilooni iyo ammaan noloshooda. waa waajib iyo mas'uuliyad saaran ragga. u fiirso, Allah Azza wa Jal asagaa khalqaday rag iyo dumarba asagaa khalqaday. saasoo tahayna Qur'aanka chapter dhan ama suurad dhan buu wuxuu ugu khasisay ama ugu talagalay dumarka suuratu Nisaa oo nagu karaamadeeyay oo nagu sharfay sidii loo fahmo yani makhluuqan oo Ilaahay khalqaday oo yani very delicate ka ah oo yani very oo yani subhanallah oo special ka ah oo dumarka ah sida loo fahmo. suuratu Nisaa buu Ilaahay Azza wa Jal noo soo dejiyay oo waliba aayada ugu caan badan oo ah الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تاس من أموالهم marka taas maxay ku tusaysaa ragga inay u baahan yihiin inay yani leadership inay lahaadaan, inay qaa'imuuna باحتياجات المرأة. يعني markasta hooshooda iyo mas'uuliyadooda waxay tahay inay dumarka noloshooda ku jira inay u khidmeeyaan, inay caawinaan, act of service inay markasta u sameeyaan oo markasta ay ka caawinaan wax kasta oo dumarka dareensiinaya xasilooni iyo nabadgelyo nolosheeda iyo xagga nolosha maalmeedka oo gurigeeda iyo xagga lacagtaba. inay ka dareemaan yani safety oo physically iyo financially ba ah. marka muhiim bay tahay inay ragga taas ka shaqeeyaan. and in fact na subhanallah waaba fitrad oo Ilaahay ragga ku abuuray inay markastaba yani inay protect gareeyaan ama inay ilaaliyaan ammaanka dumarka noloshooda ku jira. yani badana psychology waxay isticmaalaan example oo caan ah oo ku saabsan wiilka yar 7 sano jira ama 6 sano jira hadduu arko hooyadii iyo aabihiis oo murmaaya yani asagoo xitaa fakirin isla markiiba intuu soo boodo buu hooyadiis buu protect gareynaya ama hooyadiis buu ilaalinaya oo aabihiis buu kasoo hor istaagaya siduu hooyadiis u ilaaliyo. taas maxay ku tusaysaa waa fitrad oo Ilaahay ku abuuray yani ragga inay markasta heegan u ahaadaan, inay diyaar u ahaadaan ilaalinta dumarka oo noloshooda ku qaalisan. That's why subhanallah حتى يعني دمر كمرمر مركي لا كفتمو او لا دهو gabdhaha hadii la dhaho nin oo search aha jecesha wixii la soo boodaan badana nin oo 6 packs aha raba run ahaantii hadda u fiirsatid taaso waa baahi oo la wacyi ah yani subconscious need ee dumarka qabaan waa because the more ninka sii murqaweyn yahay the more dumarka amaan sii dareemayaan oo xasilooni ee sii dareemayaan. yani murqahaas waxay ka tarjumayaan ninkaas uu xoog badan yahay ninkaas more buu ku ilaalin karaa, ninkaas more buu ku protect gareyn karaa. subhanallah laakiin hadda waqtigan la joogo geesinimada laguma qiyaasi karo murqaha because sometimes markii arinta serious ee noqoto rag badan oo yani murqa waaweyn hadii arinta serious noqoto waxa la arkaa ayako dumarka gadaashooda istaagay. marka taasna waa kaftan laakiin waxa muhiim ah markasta inuu ragga fahmo inay markasta gabadha dumarka ah inay ammaan u dareensan tahay, inay ammaanki u baahan tahay, inay markasta dareensanaato yani safety.
يعني سبحان الله taasi waa wax ugu muhiimsan ee dumarka u baahan yihiin ragga inay fahmaan ragga inay sameeyaan ee ugu baahan yihiin marka intaan horta gelin baahidii labaad oo dumarka nabiga horta aan ku salino sallallahu alayhi wasallam baahida labaad ee u baahan yihiin ragga inay aad iyo aad u fahmaan waxa la dhahaa reassurance tawkiid ina markasta ku soo celcelisid maxaad ku soo celcelinaysaa laba wax إني دمر كاس يعني ضبيعة الدمر إلهي سدوا خلق الضبيعة دودا أو من ينشأ في الحلية مركز توحي تشعليهين إني إسقرحيان إني مال قروح كل احتران يعني هذه قروح داس إسقرحين تاس يعني نلوشوا ذا قيب وين بك قاعدتا مركز مهم بوقتها رجع نلوشوا ذا كتيرة إني مركز تكلها وقرحون تهاي وانكتشعلهاي ما شاء الله قف آد وفي عم باتهاي يعني positive affirmation inay markasta ka helaan waa dabiicad waa baahi oo u baahan yihiin dumarkoo dhan especially taladan waxay ku socotaa aabayaasha Soomaaliyeed billahi calaykum aad iyo aad waxa ugu yani ina ugu baraarugsanaatan waxa ah dhibaatooyinka oo gabdhaha yaryar oo teenagerka ah gabdhaheena yaryar ama gabdhaha dhalinyarada ah teenagerka ama kuwa ka sii waaweyn waxyaalaha dhibaatooyinka keena inay niman oo u qalmin niman oo munaasib u ahayn niman oo marka ugu horeysa ee arkaanba ee iska raacaanba waxa keena because baahidaas ala kabin baahidaas oo ah inay markasta positive affirmation in loo sheego in la dhaho waa ku jecelahay waa wanaagsan tahay waa fiican tahay waa qurxoon tahay marka aabaha Soomaalida maxaa laga rabaa aabaha Soomaaliga waxa laga rabaa markastaba maalin kastaba inuu gabadhiisa ku dhaho aaba waan ku jecelahay aaba gabar wanaagsan baa tahay aaba gabar qaali ah baa tahay aaba gabar qurxoon baa tahay taasi maxay keenaysaa maalintuu oo nin intii jidka ku aragto oo dhaho waa ku jecelahay iyo waad qurxoon tahay يعني قف already كدركسن وايا باهيداس أو because familygeedii aabaheed especially baa markasta ku dhaha marka yani dhag jalaq uma siinayso ma sii raacayso laakiin haddii gabar oo weligeed hadaladaas ee familygeeda ee ka maqlin ee tahay ninkaas dhigaheeda wuu sii raacaysa attentionkeedii buu soo jiidanaya marka muhiim bay tahay gabdhaheena inaa إن شاء الله يعني باهداس أككبنا مركزتا وشيغنو هويو يا أبابا especially أبياش يعني مور أبياشي تعليهين إني قبلها إني كما قلان أبياشي تعليهين أو أبا وقرحون تهاي أبا وناكسن تهاي قبر في عم بات تهاي قبر قرحون بات تهاي مركزتا إنا أرنتاس كسوع الإلينو تاسو عمد تنلبات أربا إنا كهدلو أو يعني under the reassurance كأ waxaa jirta problem ama mushkilad oo markasta especially lamaanaha ee ka dhex dhacdo oo ah maseerka dumarka again ragga Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay fahmaan maxaa laga wadaa maseerkan maseerka sidiisaba waxa lagu leeyahay waa symptom marka wax oo koos gareynaya jirta wax asbaab keenaya jirta hadda for example haduu hargab kugu dhaco ama duray haduu kugu dhaco waxa laga yaabaa acazukum Allah sankiina biya ka daaya maxaa la yiraahdaa in qanda ku qabanaysa madax xanuun adi waxyaalaha oo hargabka astaamaha hargabka waxa kamid ah yani in madaxa ku xanuuno inay sankaada socdo saas amal iyo yani sanka inuu biya ka socdaan iyo waxaas yaa kamid ah Soomaha marka sideedaba qofta dumarta ah markii baahideeda oo safety-ga ah yani amaan inay ka dareemayso yani in la jecel yahay inay dareemayso markii waxyaalahaas oo dhan ay haynin ya oo lack of safety lack of assurance reassurance hayso maxay keenaysaa waxay keenaysaa inay ninkeedii ama lamaanaheedii inay markaste yani ka raadsato sidii uga heli lahayd yani safety-gaas ama baahidaas marka maxay ku khasbanaanaysaa waxyaalo badan oo keenaya inay yani position ee gasho inay qof oo maseerlay inay noqoto yani for example inay maanta dhan wax baarayso telefonkiisii passwordkiisii pin codekiisii maanta dhan halkee aad halkee joogtaa maxaa sameysay halkee socotaa yaa la socotaa yaa la hadashay yaa fiirisay waxaas oo dhan maxaa keenaya because yani jealousy-ga yani oo maseer
maseerka keenay marka ragga Soomaaliyeed maxaa rabaa inay sameeyaan markii dareemaan qofka xaaskooda waxaan ka hadlaynaa maseerka oo dabiiciga mid waxa jirta oo jira ah waxaan ka marka maxaa laga rabaa ninka oo Soomaaliga ah waxaa laga rabaa markaste inuu dareensiiyo xaaskiisa inay qalbigiisa ay qaali ay ku tahay inuu jecel yahay inay ayada yani maxaa la yiraahdaa qalbigiisa ay ku weyntahay inuu markastaba u muujiyo jaceelkiisa iyo wanaagiisa iyo inuu markaste ayada ma ahe meel kale ma fiiriyo marka taas maxay ka caawinaysaa inuu maseerka qofka dumarka ah inay ka yaraato okay taaso waa tii baahidii labaad oo ku saabsaneed reassurance-ka baahida saddexaad aan rabna inaan caawa ugu soo xirno insha Allah videogan waa baahi oo aad iyo aad ayadana muhiim u ah oo ah emotional support taageernimo oo xagga يعني dareenka iyo morally iyo xagga moraalkeeda ina markasta ka kubcisid ina yani ina dhiirigelisid bi u baahantahay qofka dumarka ah subhanallah waxa lagu leeyahay dumarka sideedaba Ilaahay Azza wa Jalla sidoo u khalqay yani kayaankeeda sidoo Ilaahay u khalqay ayadoo dhan waa fiilooyin iyo xargo wada emotions iyo feelings ah isku dhex jira yani dumar oo dhan waxay ku saabsan yihiin oo Ilaahay Azza wa Jalla oo yani oo ku dareenka iyo feelingka an Ilaahay Azza wa Jalla wuxuu saas ugu khalqayna because mahamadooda iyo mas'uuliyadda weyn oo u dhiibay oo ah ibn aadanka yani oo calooshooda Ilaahay Azza wa Jalla oo ku abuuray fi dhulumatin thalath oo يعني mugdigaas iyo يعني minkaas oo ilmahaas ay ku jiraan waxay u baahan yihiin inay dugsi badan inay dareemaan inay maxaa la yiraahdaa jacayl badan inay dareemaan markii ka soo baxaan hooyada caloosheeda ilmahaas waa very delicate waa very vulnerable marka markasta waxay u baahan yihiin hooyada jacaylkeeda iyo wanaageeda iyo dareenkeeda xitaa that's why dumarka waxa lagu leeyahay when it comes to markii laga hadlo يعني dumarka aad bi uga sarreeyaan يعني intellectually aad bi uga sarreeyaan ragga ka hadalka dareenkooda expressing their emotions kooda dumarka way ka hadli karaan way muujin karaan dareen kasta ee dareemayaan marka waxa muhiim ah ragga inay fahmaan dumarka emotions kooda waa up and down sida yani muujadaha badda hirka badda marna waa high marna waa low marka ninka ragga ah waxa la rabaa surfer inuu noqdo markii emotionskaas ama markii feelingskaas ay high tahay inuu si xasilooni ah si oo nabadgelyo ah iyo kalgaceel iyo naxariis inuu la dhaqmo markii ay low tahayna inuu markaas si oo positive ah oo dhiirigelin ah oo wanaajin ah iyo niyad u dhis inuu u sameeyo haddana subhanallah dumarka waxa keenaysa ups and downs keena sometimes it because of age ka sometimes because of hormonal imbalance ka ama يعني دعده درتد اما jirkaadi hormoneskaadi wax iska bedel waxyaalo iska bedelayaan hadda u fiirso gabadha oo teenager ka gabadha yani markii teenager tahay because hormoneskeedi jirkaas isbedelaya jirkeedi isbedelaya hormoneskeeda isbedelaysa mood swing big maanto dhan marna way xanaaqsan tahay marna waxa laga yaabaa aad bi u faraxsan tahay marka waxa laga rabaa aabaha inuu taas la socdo oo dhihin gabadhan kibir baahaye maxay marbasaas u noqonaysaa again ninka oo maxay xaaskiisana inuu fahmo waxa jirta yani markii yani cudurka sharciga oo bil kasta dumarka ku dhaca wiiga ka horeeya dumarka waxa laga yaabaa xanaaqooda inuu badan yahay maxaa la yiraahdaa emotions kooda inay badan tahay inay dhaqso u ooyaan inay xanaaqsan inay codkooda dheereenaan ayakoo dhan inay yani xogaayr yani emotionally psychologically ba inay maxaa la yiraahdaa oo high ahayn ama low yihiin taas marka maxaa laga rabaa ninka inuu fahmo yani gabadhan bil kastaba wiiga ay ku jirto ama wiiga ka horeeya waxyaalo badan baa ka khaldan xagga dareenkeeda iyo xagga emotionskeeda midda labaad xitaa markii walaca tahay again waa hormonal imbalance ku dhacaya oo keenaya waxyaalo badan inay sanifto waxyaalo badan inay jeclaato emotionskeeda maanta dhan waa ups and downs again xitaa markii dhasha ka bacda ee umusha noqosho
noqoto umusha waxaa dhacda again hormonal imbalance yani hormoneskeeda baa waxyaala chemicalska jirkeeda waxyaala iska bedelaya oo taasna waxay keentaa waa wax dabiici ah dumarka badanaa ku dhaca baby blues baa la dhahaa baby blueska haddii oo yani taageero fiican ee gabadha dumarka ee helin oo support fiican ee ka helin familigeeda wuxuu keeni karaa inay sheekadii oo yani awalba xoogaaya in moodkeeda oo dansanaa baa laga yaabaa laakiin haddii support fiican in a good time haddii helin wuxuu isku bedelayaa baby blueskaas into antenatal depression yani markii umusha ilmaha la dhalo kabacdi dumarka depression oo ku dhaca marka maxaa laga rabaa inuu ninka oo yani gabadhiisa xaaskiisa inuu fahmo inuu emotionally inuu u support gareeyo because yani waqtiyaasha ee dumarka oo ugu daciifsan yihiin bay kamid tahay waqtiyaasha oo yani dumarka vulnerable ee kamid aad u yihiin oo u baahan yihiin yani inaa asarag inaa u garab istaagtid inaa ta saddexaadna waxaa jirta dumarka markii soo weynaadaan 45 sano ilaa 50 sano ilaa 55 sano ka badan waqtigaas markii soo gowraan oo yani cudurkii sharciga oo kasoo go-aya ama oo ka tagayba waxay galeen menopause-ka ay galeen waxaa muhiim ah again inay ragga inay fahmaan sidii u caawini karaan dumarkooda because menopause-ka waxyaalo saameyn badan bay waxay ku leedahay dumarka emotionskooda dareenkooda maanta badanaa way qaylo badan yihiin badanaa way xanaaqsan yihiin waxaana arkaysaa subxaan allah arrin oo aad muhiim u tahay inaa qoysaskeena Soomaalida inaa fahno because waqtiyaasha badana oo yani kala jabka qoyska dhaco ama yani kala taga ragay dumarka oo dhaco badana waa markii ilmaha soo weynaadaan waxa ka soo qaadaa hooyo oo markii adiga jirtay 30 ama adiga yani mid 30skeed markii jirtay markii ilmaha dhashay by the time ayada menopause-ka ay galayso caruurteedina teenager galaya marka ilmihiina hormoneskooda teenagerkii baa qasaya hooyadiina menopause-kii baa qasaysa marka clash badan baa ka dhexdhacaya caruurtii iyo hooyadii baa markasta qeyle iyo dagaal oo imaan karaa because hooyadiina menopause-keedii baa mood swing badan u keenaysa yani menopause-ka oo yani maadaama cudurkii sharciga oo ka tagay ama ka tagi rabo baa waxaa imaanaysa waxyaalo badan oo dareenkeeda iyo feelingskeedaba oo maxaa la yiraahdaa markastaba oo yani khalad badan ama khalkhal badan ku sameynaya odaygii aabihiina waxaa laga yaabaa asagana waqtigaas inuu midlife crisis oo ku jiro oo asagana laftirkiisa xaaladihiisa oo gaarka ah oo asagana haysato marka clash baa imaanaya waxaa markaas ka abuurmaya inay qoyskaas inuu burburo oo divorce dhaco especially ayako 20 sano ama 25 sano ama 15 sano isu soo qabay marka taas waxay tahay ragga Soomaaliyeed inay fahmaan dumarka inay emotionally u support gareyn karaan waxaa jirta arrin kale oo ku saabsan yani emotional support-ka inay dumarka u baahan yihiin subxaan allah sometimes yani aaraa oo toxic ah sometimes baa wax u arkaan inay dumarka baahidaas ay u baahan yihiin inay emotionally in loo caawino in la support gareeyo dacf oo dumarka ku saabsan ay tahay marna inay muujinin dacfigaas yani waxaa ka fiirin kartaa yani waxaa jirta laba fikir oo labadaba oo yani toxic oo fiicneen oo islaamkana kasoo horjeeda mida oo ah aaraa kamid ah feminism-ka iyo misogyny feminism-ka waa dumarka oo neceb ragga ama dhahaya ragga waa la midnahay waa la simana waxyaalo badan ee ragga ku liidayaan misogyny-na waa ragga oo dumarka liidaya intaas oo dumarka necebkooda abaabuliya marka maxay ku tusayaan taas yani inay yani emotionskaas iyo inay dumarka emotionskooda ee markasta ay ka hadlaan ama muujiyaan waa wax loo baahneen taasna islaamka iyo oo maxaa la yiraahdaa ku liidayaan sometimes waxay dhahayaan xadiidka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku sheegay saxiixul bukhariga iyo muslim yani xadiidkaas dhaliilayaan oo ah ama taageersanayaan oo ah istawsu bin nisaa fa inna al mar'ata khuliqat min dilc wa inna a'waja shay'in fi dilci a'laa
يعني كو دمرك أو يعني feminism أو أفكار feminism أو دهاية أو سده بعد دمرك لورده كرا ولفق الله عن رجن أو مسجوني جنا إحنا أو يعني دمرك ليدنا وحد دهاية دمرك سده ضبا ووح إسكوا ذق الله عن أو يعني أو أيكو بابا يعني سخلت أفكراية سخلت مركز تبا أو قرارات ضي وحكست سمعنا عيان سي أو محلي هذا behavior خلط أي مركز سمعان يعني ده taas laakiin islaamkeena iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu dhahayay yani dumarka dilic oo acwaj ah lagama wado xumaan ama xumeen oo yani ama liidid oo lagu liidayo dumarka in fact waxa u fiirsataa yani dilcigaas yani qafas sadriga markii feeraha oo lafaha feeraha maxay sameeyaan wixii ilaaliyaan oo yani nabadgelyada wixii ilaaliyaan xubnaha oo ibn aadanka ugu muhiimsan oo ah wadnihiisa iyo sanbabihiisa that's why lafahaas oo qaloocan oo saas u samaysan oo qafaso sadriga ama rib cage-ka waxay ilaaliyaan xubnaha ugu muhiimsan oo qalbiga iyo maxaa la yiraahdaa iyo sanbabaha ah hadii lafahaas lafa straight hadii ahaan lahaayeen hadhow inay wax oo ibn aadankaas ku dhaco lafihii baa wadnihii gali kara ama sanbabihii gali kara that's why ilaahay casa wajal oo uga dhigay lafa qaloocan dumarkana waa sidoo kale qaloocaas yani ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aha wax kale waa emotions kooda ziyaada ah waa emotionska ilaahay nagu badiyay and the reason oo nagu badiyay because sida u ilaalino xasaloonida iyo safety-ga ubadkeena ilmaheena yaryar markii dhashaan markii yar yihiin markii weyn yihiin naxariistaan ugu badan yani dareenkaan ugu badan sida markaste u ilaalino ibn aadankaas markuu ugu yar yahay oo markuu ugu daciifsan yahay hooyada baa markastaba yani oo yani aad ugu najaxda sidii u koolkoonin lahayd iyo sidii ibn aadankaas yar u taageeri lahayd u support gareyn lahayd in everything and to do that sidii hooyada taas u samaysana waxay u baahan tahay ilaahay casa wajal wuxuu ku abuuray emotions badan iyo feelings badan iyo raxmad badan iyo naxariis badan iyo jacayl badan inuu qalbigeeda ku jiro marka nabiga calayhi salaatu wasalaam yani istawsu bin nisaa khayran asagaaba dhahay markasta dumarkiina yani si khayr ah oo la tacaamula si wanaagsan oo si oo xasalooni ah iyo si oo jacayl iyo kalgacayl ku jiro xitaa markuu dhibanayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay as-salaa wama malakat aymanukum يعني صلاتنا إلالية دمرني قيادتنا يعني دمرك قبتيني دمرك مسؤولك كتهينا إلالية أو أن حريستا حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني رفقا بالقوارير وطولها يعني دمرك واسدة ضلو أو يعني أو إيزي الأكلة شبكرتا مرك قلبي هذا قلبي هذا إنا مركزتا إنا وناتيسد إنا أن حريستد إنا تشعال أموتيسد رفقا بالقوارير سيدو النبي عليه الصلاة والسلام لهاي مركا dumarka emotionskooda inay emotionska ku badan yahay wax xun ma aha waa yani waa sifo oo qurux badan ee tahay dumarka inay ku faanaan inay uga duwan yihiin ragga marna qarinin marna dhihin oo sida anaka ragga u qarinayaan ba anakana u qarinayna emotionskeeda no this is a strength oo ilaahay ku abuuray waa yani quwad iyo yani hibad oo ilaahay ku abuuray ee tahay in dumarkana ku faanto oo ninka ragga ahna inuu markaste emotionally iyo maxaa la yiraahdaa yani xagga dareenka iyo xagga jaceelka iyo xagga wanaagga iyo xagga naxariista waqti waxaan ku jirnaa hadda subhanallah yani ibn aadankii yani Soomaalida kaliya yani dadkoo dhan naxariista especially naxariista xagga ragga naxariista inay more muujiyaan baa laga rabaa oo yani waqti waxaan ku jirnaa oo compassion deficiency yani dadkoo dhan naxariista way ku yartahay marka especially ya u naxariisanaysa ducafaaga dadka oo daciifka ah daciifkana waxaa kamid ah dumarkana ilaahay casa wajal biidni illaahi tacaala wanaag kasta iyo khayr kastaba ilaahay wuu siin doonaa as long as ayaka naftooda ee raali ka yihiin dumarnimadooda ee ku faraxsan yihiin oo yani laa tagyiira likhalqillah bedelin waxbana ka bedelin khalqadu ilaahay khalqay marka insha Allah intaasaa kusoo koobeynaa baahiyada
ugu muhiimsan ee dumarka ee uga baahan yihiin ragga oo ah safety يعني أماني حسلوني إيكا دريمان محي كاله iyo inay reassurance u sameysada markasta waan ku jeclahay waa wanaagsantahay waa qurxoontahay positive affirmation ina markasta siisid iyo tan saddexaad ina emotional support ina siisid yani ina raxiim noqotid ina naxariis aaba naxariis badan maxaa la yiraahdaa zooj naxariis badan wiil oo naxariis badan especially wiilasha dhalinyarada waqtiga markay hooyooyinkood sii weynaadaan qeyladoodu sii badiyaan intaas maanta oo dhan waxay ku leeyihiin wiilasha oo hooyadan markasta waxay naga walwalaysaa halkee jirtaa maxaa sameynaysaa halkee ku maqantahay the reason sababta ee hooyada markasta ee safetygaada ee u ilaalinayso because waxyaalaha baahida ee ayada u baahan tahay inay markasta ee hubto inay haysato oo ah xasilooni iyo amaan nafteeda iyo ubadkeeda that's why hooyooyinka markasta yani ay ku sii weyn tahay markasta xasiloonida iyo nabadgelyada ubadkeeda markasta uga daba socota halkee joogtiin ma fiicantiin ma wanaagsantiin intaas uga heeso marka insha Allah warifqan bil qawaariir sidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay in noola xariisto dumarka yani waxyaalaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay mujtamaceena intaas ku soo koobeena videoga soo soconana waxa ka hadli doonaa baahida ragga maxay u baahan tahay gabadha dumarka ah inay fahanto ragga baahiyadiisa ugu muhiimsan maxay tahay inay fahanto insha Allah taas videoga soo socda uga hadleena وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله